صاحبكي هاتلي xogaan ka mashquulay raali ahaa warka hadda ii soo bilow si fiican aan u dhageystay maxay dhahday تليني هو برنامج كو ابلاي جري لغuma doorna ay soo baxday kadib waxa waaye maalin dambe Gmail ii soo direen ay dhaheen barnaamijka madaleedina ay uber create-keeda akoonkaada madaleedna ma soo cusboonaysiiyay ku dhawac cusboonaysiiyay hadana xogteeda xariyay marka naaga maanta Instagram-ka ila soo xiriirtay UK joogaa dhaaday xogteeda baari sax waa UK way joogtaa oo sawiradeedii wixii dhan United Kingdom ku qoran London ku qoran magaalooyinka tagtagta ku qoran marka saddex cunug haystaa dhaada naagta saddexda cunug waxay dhahday mid 6 sano jira iskool oo dhigta labada kale 3 sano jiraan meel xanaanay algiya marka subaxii qaaday tiri meesha xanaanada geeyay 3 saac amal galabtii 9 saac waa ka doonay 6 saacadood shaqeeyay mushaar marka wada hadasheen mushaar intay ku siinayso bishii wiigi waxay dhahday 450 adiga bishii 1800 waa asbuucii dad badan meeshan ku jira oo been soo qoray maanta dhan anigu ma fahansani marka wax ma akhriyaan miya aqoonta ma ku yar waa fahmi waay ma garatay ما dadka adiga Soomaali waa in faantaaday qofka ilaa wax u qabato ma ku aaminay faantaaday marka contractiga ma saxiixday hadda dad badan oo marka adiga tamaam wili meesha misla gaarin buu barnaamij hadda waxay ii dirteen agta ina maartay oo apply gareeyo waxay isiiday Gmail-ka qofka oo joogo office-ka oo Uber oo UK oo safaaradda wadankee ku siisay marka Kenya may ku siisay mise Uganda ku siisay mise Ethiopia ku siisay hadda UK isiiday baalka Gmail-ka xogtaada ku diray dhahday xogtaada ku dir ina aan iga socotana ii sheeg oo Uber u noqon doontid saddex cunug magaceedooda isiisay okay oo Beya Wall Host Family na una qadoontid saddexda cunug magacooda xogteedana ay ku siisay wasaaradda arrimaha dibadda oo UK ay ku dirtay yaxne safiirka wasaaradda arrimaha dibadda joogo ee dirtay oo UK brotherkii aqliga kaasho qof xoogaa professional ku ah Englishka raadi warqad qurux badan u qor ma fahantay waraayada xataa ina iga caawido xataa waa rabaa dhaay diyaar ah iraahdo ma fahantay waxa qoray ina ay la fiiriso naagta ayada xataa naag wax barato waayay waxay dhahday waxa ka shaqeeya Barclays bangi si fiican u sheekaysan Barclays banki ka shaqeysa bangiga Ingiriiska oo bangi qof lacag haysto waa niyo bishii 3,000 inay ku siisaa laga yaabaa wanaagaaga iyo qosolkaaga markay aragto ma fahan dadka gaalada waa ka wada hadleynaa dhaaday waxaas mushaar haduu ku ninkan ma fiirsta amal waa beenaala yani oo faataale okay been hadoo sheegay faataalo waa lacag ma soo galowso marka hadda ad Ingiriiska u socotaa ayaga oo jooga baxaysa marka dhow faataalo ay dhaanani marka ayagan waa la diiday ka soo qabo maxay sameeyaan rabaan lacag marka hadda faataalo ma ku karaan ana doo ilaahay barnaamijkan ilaahay doo barnaamijka itus yaadi faataalo ayaga ku dhiidoon markaas ayaga ku xirmaaday ما داني وحرمها تا وحبو مسو كردان وابا لديدو بالعلا وحال الله إذنك ما بيدن ربنبا محي سمين دونان مرك ليونو وقادم إلينا دانا إدار سومالي دو دب دي مكتاه عني وتلي وحاوة برامج كذا هوش هذا وول في عنا هيدا تي استري لينا أيضا وإيه مغنطة يدي صوبة حنا وأركينا أنفع تو بيرا وأركي ما توري جروا أدنى وما سنتها بقرو تري وقت أشياء هذه نوكو ما سنت أنت يا عاوز أنا كأي ما دعلنا وقتي شرفت لي ماشي كوسو فوشي أنا أقول شرح ذي جوشة جارتي
اوكي تلي وما سنت عادي تبي ونكس هبين لما ذا وقاس حفصه هذا إلى هذا الذي مركب محايد هذا horta marka hore buugaa ku salaamay oo tan labaadna shaqo fiican oo noo haysa meeshaad ka sii wad adoon waxba nagu qabin marka aan waxa